saaxiib yaal intii aan ku jiray muuqaal duubistayda waxaan soo gaaray degmada Xamarweyne gaar ahaan goobtan aadka u quruxda badan ee laga yaabo qaar badan oo idinkeedin ka mid ah weli inaysan hore u arkin ama aysanba imaanin sida halkan idinkaga muuqata da'yar wiilal iyo gabdho isugu jira ayaa halkan jooga oo sawirro ku galaya qaar ayaa muuqaala sidoo kale iska duubaya goobtu aad ay u qurux badan tahay oo sida u jeedaan hirka waxa ay garaacayaan jamalada waxa ayna sameynayaan hir iyo sidoo kale dhawaq aad maaragtay soo jiidasho u leh intaad halkan joogto waqti aad ku qaadan kartaa neecaw qabow oo aad iyo aad u qabow ayaa ka soo baxaysa inkastoo ay fiicnaan lahayday in waaxda dalxiiska ay halkan xayndaab u samayso si dadka qaarkii aysan ugu dhicin sidoo kaleeta halkaas waxaa ka muuqata degadii weyneed ee muqdisho goobtana waa Xamarweyne gaar ahaan ereyada xeebta Geliq inta oo kaliya ma ahan halkan sidoo kale waxaa la ii sheegay in dad badan ay ku geeriyoodeen kuwaasi oo isku dayay inay ku dabaashaan halisteedana dabcan ay leedahay oo u baahan tahay maaragtay in aad lagu figijignaado ama lasaga ilaaliyo intaa kasoo kow hore ayaan waxyar u dhaqaaqay god mucjiso ayaan halkan ku arkay oo laga yaabo in dadkii hore ama qurumihii hore ay isticmaali jireen taasi oo ka tarjumaysa ilbaxnimada ee gobolka Banaadir halkan sidoo jeeda waa sawir ama dhagax jaranjar ayuu leeyahay sida wuxuu u eg yahay guri hoos loo gelayo oo kale waa kan mar ayaan isku dayay inaan gudaha u galo jaranjaro caadi ah ayuu leeyahay wuxuuna tagayaa ilaa iyo hoos oo maaragtay ilaa biyaha laga gaaro waa ka uu sii muuqdaa marka waan ka soo noqday qaab runtii cajiib ah ayuu u qodan yahay taasi oo runtii ku tusinaysa in halkan ilbaxnimo hore oo qadiimi ah ay ku duugan tahay haddii baaritaano dheeraada lagu sameeyana laga yaabo in waxyaabo kaloo aad u badan laga arko sidoo kale intii aan goobtan joogay waxaan kula kulmay aabada ah oo runtii iga sheekayn doona masaajidkan gadaasheeda ka muuqda waa masjid dhisan waqti ku dhow ilaa iyo 200 oo sano waxaana la hirgeliyay waqtigii magaalada runtii ay ka jireen xaalado aad u adag oo caafimaad waxa uu ii sheegay in degmooyinka Shangaani iyo Xamarweyne ay ka jireen cudurka daacuunka masjidkan waxaa loo yaqaanaa masjidka Xaaji Cali laba qayb ayuu ka kooban yahay qaybta hore waxaa la dhisay 200 sano ka hor iyadoo qaybta gadaalana dowladda Turkiga ay ku dartay oo la dhisay qaabka loo dhisay ayaa runtii sidoo kale mucjiso la yaab leh uu iiga sheegay in halkan ay tahay sawir ama dhagax xaajigan ama sheekh suufi lagu magacaabi jiray beledka caanka sheekhul beledkaana uu ku amray in dadka halkan ceel laga qodo ceelkaasina dadka xanuunsan lagu daaweeyo biyihiisa sidoo kale dadku waxa ay ku dhaheen sidee dhulkan dhagaxa ceel lagu qodi karaa marka sheekhu waxa uu ku yiri adinka iska dhaafay bisinka Ilaahay u qabta ee qoda taasina ugu dambeyn way suuro gashay oo bisinka ay dadku qabteen waxaana soo dhawaatay ama isla markiiba la arkay biyihii dadkii ayaana sidaas lagu daaweeyay bal aan idin kala baxo wareysi aan ka qaaday ninkan halkan kula kulmay iyo runtii taariikhda masaajidkan guud ahaan waa masaajid ku yaala meel jamalah badda agteeda waxaan ugu sheekayn doono cabqari oo xaafadana degan oo hore magacaada adigu ku bilaabay naawe nanesmi ma nanes oo beledka aan la yaqaan wayaan أنا وجد أنت لين دقنا وكسرتها بسوين دقنا يبي. مثلا هذا غلسة. واقرت. أنا دقنا. محمولين أصلتها. أصل بتكسلين وكوسو دقنا ومورشة لا أجورانك. أوكي. أنا مكستي. كل مكان سو دقني أنت كوسو دقني. بور كان حديث واق بور كان دومك يالين. إيري أنا كوسو دقني. أنا كوسو دقني. واقرت. أصل كان. أنت على سو دقني كور. حاجة. أنت مركز أنت سو دقني. أنت جريت تمت. سيلو جوجو هذه لا. لو بقول صنع مسؤول جوجي جرى تمت واقر جرى مركز تمت يا halkii sax oo dhimanayso adiga 5 qafood 6 qafood 7 qafood 8 qafood 8 qafood aad dhimanaysaa waagar alxamdu xeer waxay gaareen inay cararaata oo magaalka cararaan ay gaareen oo soo noqonayna sheekhan oo sheekh suufi khilaaf galay waxay si labada masaajid al dhis labada masaajid oo labada dhinaca بريتداني وكيال فرنج بن علي اللي كان حاجة علي اللي واقر مكستي واقر وحالو إيش داعون أو همت دتك أو كل ما ناي مركز شيخة وحيري مساج كان إيشو بيجي سنة
هلا عبو انا ورت عيالك واحد يلبس العب محمد عيالك سيلو خذها جمال بواي ماشي meesha waa dhagax ها see loo suuro geliyey marka مركز صحيحي بسم الله الرحمن الرحيم ذهب بسم الله الرحمن الرحيم يري وصاب في ذهب مرة كلا يفاجئ جمسي على كلا على الوفاجئ waa gar مركز شيخ خاص كلا قال لي شخصوفي يعني راجل شخصوفي يقول عتكوا waa sheekh eriyanan caanka ahaa aad iyo aad marka masaajidkan meeqa sana ayuu dhisan yahay مشاهد كان واحد سنة أذيك بقول سديت سنة بقول 19 سنة waa 200 ayuu cagacagaynaa هسا علينا لا مشاهد لا مشاهد بقى اسكو وقت واي aad iyo aad اسكو وقت واي هلا راح حمرتها لسان haye وذكا حمر دقناي haye وجريد اللوطس هلا تركيا خضري واك qaybtan انت خيبتان تركيا خضري aad iyo aad jamaacada masjidka waran waa shanta waqti oo والله سنت وقت الدكتور سنت وقتنا وجماعة بلنا أساسها okay وحي كمان كملايكة داير yaa imaanaan salaada ku tukada وحي جمش ملايكة دبناير aad iyo aad كدكتان ماشي